السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن دمانتين ومد الصوماليات ميل كستو جوجتان أدبر من سلامية. الله سبحانه وتعالى عافماد هذا السيو. أنت عافماد قبتن إلهي عافماد كل هاو زيادي. أنت حنون سن إلهي عافماد تام سيو. رسولك عليه الصلاة والسلام قف مسلم حق در اللي قد له وحكهن كفي عنده كعبد يودنته ما أنتي waa arrin aad iyo aad looga farxay ummada Soomaaliyeedna aad ay u daawadeen ayaa magaalada Muqdisho ka dhacday taasi oo ah dambiilihii qaatilkii weynaa oo xaaskiisii quruxda badneed oo haddana xaamilo u ahayd dabka qabadsiiyey in maanta maxkamad la soo taagay run ahaantii aniga isma lahayn nin qiraal ah la og yahay oo dambiga la arkay uu galay oo dhibaatadaasi uu geystay ayaa maanta qof ninkaas u doodaya ayaa la helayaa marna maskaxdeeda kuma soo dhicin qof in loo doodo mase qof in maaragtay maxkamad qiraal maaragtay uu yeesho nin maaragtay u doodo uu yeesho ceeb maaha laakiin nin qaatil ah oo xaaskiisii gubay xitaa haddana qof muslima gubay oo qiraal ah oo ubudkii ay dhashay ay markaati ka yihiin ay hor taaganaayeen ninkii dhibkii aad aragteen ninkii geystay ayaa maanta qof u doodaya ayaa la helayaa marna maskaxdeedii kuma soo dhicin laakiin maanta waxaan arkay maadaama ay ka muuqatay ninkaa u doodayin hoogaha maaragtay khalkhal iyo cabsi uu ku furnaa laakiin si kastoo ninkaasi hanti u qaato iyo si kastoo ninkaas ugu doodo insha allah gabadhaasi xaqeeda waa uu soo bixi doonaa insha allah xitaa hadduu u badbaado allah subxaanahu wa tacaala gacantiisa kama badbaadi doono haddaba maxkamadayntii maanta ay dhacday afar mucjiso aan meeshaa waa ku arkay kolleyba dadka Soomaaliyeedna haddaad tihiin waad aragteen mucjisada koowaad isma lahayna dambiile qaatil ah oo qof muslima xaqiisa iyo ilaahay xaqii uu siiyey intuu dul maray mase dul istaagay oo nafta dhaafiyey maanta qof u doodaya la helayaa horta isma lahayn waa mucjisada koowaad mucjisada labaad qaatil dad dilay qaatil dambiile ah oo ummadii mase qof muslima nafta u dhaafiyey oo dhibaatada u geystay ayaa maanta intaa dadantay ka soo qayb galaan ayaa maxkamadiintiis ay daawanayaan marna iguma soo dhicin mucjisada saddexaad marna isma lahayn qaatil wax dilay oo maanta aan islahaa qofka keliya uu naftu u dhaafay aan islahaa inay hooyada aruurta dhashay ay tahay laakiin meeshaasi ay iga soo baxday qaatilka inuu dembi ka weyn uu geystay aruur 2 jir ah 10 jir ah iyo ka sii yar naftooda halis u geliyey waa mucjisada saddexaad mucjisada afaraad isma lahayn marxuumadii geeriyootay hadalka gabadha yiriistaa 10 sano jirka ay ku dhawaaqtay oo ah waxa laga yaabaa in aan dhinto hal iska kay cafiya waa mucjiso afaraad antaasi oo dhan waa mucjiso soo baxday laakiin mucjisada igu weyneed aniga aan islahaa ma soo bixi doonto maskaxdeeda waxay ku jirtay maskaxdeeda waxa ku jirtay shacabka Soomaaliyeed ay islahaayeen ninka dhibka kaliya wuxuu u geystay aan islahaa inay tahay maamada masi islaantii masi gabadhii uu gubay aan islahaa inuu maartay dhibka u geystay marna isma lahayn ninkan xitaa aruurta naftooda halis geliyay hadalada ninka markii koowaad la soo taagay meesha markii la soo taagay xeer ilaaliyaha muxuu ku yiri saddex su'aal baa la soo bandhigay oo ah dambiga ma gashay ya tan kale maxay aad iyo ma gelin iyo dood sharciyan ka qaba ninka saddexda su'aal markii la weydiiyay muxuu yiri dood sharci ayaan ka qaba dood sharci ayaan ka qaba ilaahay baa idinku dhaariyey
marna isma lahayn nin caafimaadkiisu taam yahay oo dembigu geystay uu hubo oo dhibaatada uu geystay ay u muuqato maanta hadalkaasaa uu ku dhawaaqaya marna maskaxdeeda ma gelin u soo qaad ninkaa inuu yidhi dood sharci ayaan ka qabaa doodda maanta waa la dhegaystay waxna ma rabo in halkaan soo bandhigo laakiin ninkaa u doodayay maadaama uu khalkhal ku furnaa iyo waxa meesha la keenay shidaalka iyo naftada dhisku haystay ninkan muuqaalada qaar mase muuqaalka waxaa ku jirtay ayadoo maaragtay naftada loo soo gaday in cayayaanka lagu dilo loo soo gaday oo gurigaa la keenay oo antay maaragtay markii hore khilaaf ka dhaheeyey ayaga muran ka dhaheeyey iyo maxaa isku soo beegay haddii dabka mase gubitaanka gabadhaasay la gubay haddii aan loo qastin ninkan sidee uu ku baxsaday siduu ku maqanaa 2 isbuuc iyo ka badan sida ninkan ku maqanaa kama wuu dhacaa allah subxaanahu wa tacaala buu maaragtay qadarka allaha wato wax kasta way dhacaan war wax maanta la dhacay mase hadalka maanta meesha ka soo baxay ma aha hadal ninkaa lagu difaaci kara ma aha khilaaf uu dhacaa guri dhisan khilaaf uu ka dhex dhashaa khilaaf meesha uu ka dhex dhashaa wallaahi khilaaf inuu dhalanayo id kasta way og tahay laakiin khilaafka meesha uu ka dhacay sida waxa u dhaceen iyo sida loo qarqariyay sida loo duugay iyo sida filinka loo dhigayo markii asla fiirisid waa filin anti gabadha farinjeerka ku jirtay iyo anta asiga meesha godka guriga lagu haayay waa filin la diyaariyay bay u muuqataa ninkan hadday kamaca waxaan ku dhaceen isla markii wuxuu dhihi karay inta banaanka soo istaago kaalay waxay la qabta gurigaygaa gubtay gabadheedaa gubatay kaalay islaanteedaa gubatay isoo gaaro wuu dhihi karay hadday ninkaanay arrintaani kamaca ku dhacday antuu qayla dhaamiyo oo biyo soo qaato mas gabadhaasay wuu damin karay arrin baa kamaca ku dhacday markii maamada gabadha markuu dabka gaaray ninka antuu banaanka u soo baaday banaanku u soo cararay ayuu ilbaabka ku xiray siday ku dhici kartaa arrintaa kamaca bay ku dhacday iyo iyadoo huraysa ilbaabka ku xiray markii ay gubatay ay baslaatana waan cararay isma keenayaan caqliga qofka maankiisa joogana waxa galaya maaha islaantiisii oo waxa ku dhacay kamaca ku dhaceen oo uu jeclaa sida meesha laga sheegay oo islaantiisa uu jeclaa ay tahay oo khilaafo ka dhaheeyey khilaaf waa la hallin karaa haddii la hallin waayena kala tag baa ka dhacay wax weyn maaha laakiin islaantaadii adoo la taagan baa dab qabsaday waxana kamac bay ku dhaceen waana damin karay waana qayla dhaamin karay tolku ku soo bixi lahaa halkaas waxa laga fahmi karay waxa meeshaas ka dhacay inay ahayn waxa kamaca ninkaanina maantay meesha diiba ka soo bixi lahayd masraali gelin iyo maaragtay dhiig baa la kala qaadan lahaa halkaa waxa ka muuqata ninka dabka an asigu u geystay oo maamada asiga u dubay islaantiis in isuga dabka ku qabtay waxa qarsoomaya mana qarsana ilaahay ha u naxariisto laakiin maanta isma lahayn dambiile qaatila ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi ka galay qof muslima nafta dhaafiyey weliba 2 qof nafta dhaafiyey ayaa maanta qof u doodaya la helayaa marna isma lahayn wallaahi marna isma lahayn laakiin waxa ka xumahay isla markii in barnaamijka inta la bedelay la rogay isla markii isla meeshaas looga dhigay bahash inay qabiil iyo qabyaalad madaxa loo geliyay isla markii meesha ay ka muuqatay markii banaanka loo soo baxay waa markii ugu horeysay tolka mase ehelka ninkaa ka soo jeeday ay dhaheen ninka anigaa soo qabanay anigaa dowladda u keennay aniga cadaaladda soo hor istaajinay dadka meesha been bay ka sheegeen been cad bay ka sheegeen hadday dhab ka tahay
ninkaas ma maqnaan lahayn 2 isbuuc iyo ka badan antuu dhulkan ka cararo oo hoodku u galo anta la soo qabto 3 isbuuc iyo ka badan qol laguma haysan lahayn haddii ay dhabka tahay waay hadday cadaaladu arraayeen hadday ay ka soo qaadeen qofka la gubay dhibaatada loo geystay haddii ay ka soo qaadi lahaayeen caruurtooda iyo kuwa ay dhaleen haddii ay ka soo qaadi lahaayeen ninkaani 3 isbuuc ka badan qol kuma jiri lahayn gabadhaasina 3 isbuuc iyo ka badan firjeer kuma jiraan mar hore la duugi lahaa hadalka aan la qarqariyo geesaha laga marmara maaha xitaa haddii aad ninkaasi cadaalad u heshaan mase ninkaas haddii intii fal kasta dembi kasta u geystay haddii la qariyo oo sida uu ku badbaado ogaada iqaabtii Allah subhanahu wa ta'ala dhabarkiina ay suran tahay mana idinka harayso arrinka halka ha ii joogo maanta waxaan aad ugu faraxay oo aan aad iyo aad aan ugu faraxay 3 caruur meesha soo istaagtay gabadhii 10 sano jirka u weyneed gabadhaasi oo muujisay karti oo weliba aan isiriniyow markii hore miyaa laga rabay rag laga rabay aan isiri karti mase hadallo qof aysan ku dhiirin karin ay ku dhiiritay oo ah dambiile iyo dilaaga qof caruura 10 sano jir ah hadal ku dhawaaga kara maaha hadal laga filayna maaha waxa kaliya aan maanta aan ku farahay waxa kamid ah 3 caruur meesha taaganaayeen gabadh iyo wiilka roon inay xaafidul quraan yihiin quraanka dhameeyeen unaga ugu yaro meesha taagnaa dabka lugta ka gaarina inuu digsiga quraanka hadda dhigto meel fiican u marayo waxa kala aad aan ugu farahay 3 unug meesha la soo istaajiyay in aysan ka muuqan wax jaljalaac ah aysan ka muuqatay cadeeg iyo dhabar cadeeg ay ka dhahaleen aabahoodii dhalay iyo hooyadoodii macaaneed ay ka dhahaleen inay ka muuqatay alxamdulillah waxaan aad iyo aad aan ugu faraxay gabadhii luul caruurteedii inay ku korisay cadeeg akhlaaq iyo diin inay ku korisay sida caruurta afkooda ay ka sheegeen antaysan geeriyoon ka hor inay maaragtay gabadha mase wiilka ay quraanka u meerisay oo 10 ay siisay oo habeen kastana 10 ay siin jirtay wallaahi billahi tallahi meeshaas adeer qof dumar kuma dhaman qof bani adana kuma dhaman dahab baa halkaa ku dhintay dahab allow ku naxariiso ya maantay ma jiro waalid oo haddana dumar ah ubudkiisa sidaa u barbaarin kara haddii uu jiro waxaan isleeyahay qofkii keliya jiray inay gabadhaani tahay ay geeriyootay ilaahay ha u naxariisto waxa keliya maanta aan aad iyo aad aan ula yaabay oo aan aad iyo aad aan ula yaabay caruurta weliba gabadha in ay ninkii hooyadeeda gubay marna waxa qadarinaysan siin adeerkayga iyo abtigay iyo waxba ayse afkeeda ka soo bixin oo ah qaatilka dilaaga dambiilaha ilaahay baa idinku dhaariyey qof yaa ku dhiirin kara maanta war xitaa siyaasiyaan ku dhiirin karin maasha allah adeer ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay ha ku koriyo waan hubaa inaad duruuf adag aad ku kori doontiin waa hubaaye ilaahay ha idin fududeeyo laakiin waxaan halkaani fariin ugu dirayaa 2 wiil oo yaryarka ah kolley waa maskaha soo koraysa soo socoto insha allah maskaha soo koraysa soo socoto wayna kori doonaan laakiin waxay ku kori doonaan maskax u baahan in ay fikirto oo ay ku fikirto qaatilkii dilay hooyadooda dilay in ay u fikiraan maskaxdaasay ku kori doonaan ilaahay ha koriyo
waxa kaliya maanta haddana aad ugu farahay qaatilkii waxa dilay wejigiisa shucuurtiisa waa la yaabay waa aad buu ugu qoomameeyey aad iyo aad buu ugu qoomameeyey boqolkiiba boqol insha allah mana heli doono inuu banaanka sii joogo ma heli doono hadduu helana meel lagu xisaabtamaa ka horeysa insha allah Soomaali dhan baaba ka horeysa asagana haddii sidaana lagu dilo oo sidaa uu ku dhinto xitaa waxa laga yaabaa inuu dambigiisa aakhire fudud noqon doono laakiin hadduu sidaa ugu badbaado sidaa dunida ku joogo waxa u taala maalinka aakhiro maxaa igu dishay Luul Cabdicasiis ilaahay ha u naxariisto qabrigeeda ilaahay ha u waasiyo aruurtii halkaasi ka muujiyay reegtamada ka muujiyana ilaahay ha koriyo ilaahay ilbaab kastoo dhab ku hayay ku xirnaa ilaahay ha ka furo farish khayr qab ilaahay ha u furo ilaahay awowihii soo koriyey mase qofka hadda gacanta ku hayana ilaahay ha la koriyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu